kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa qoraalkan ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. halkaad kala soconaysaanna waa channelka Ogaalka Audiosom. ku soo dhawaada qaybta xigta qaybtii horay aad u soo dhageysateen. si aan u maqlo sheekada ay wadaagayaan labada ruux isla mar ahaantaana aan u aqoonsado dadka ay labada ruux yihiin ayaa waxaan ku fikiray inaan isku qariyo derbi ka sokeeya halka ay fadhiyaan aniga oo waliba u dhuukinaya. ha yeeshee way dareemeen markiiba inuu ruux dul meereysanayo. si bareere ah ayaana la iigu yeeray. waxaan ku biiray labadii ruux oo aan fadhiistay meel dhinacooda ah. qofka ragga ah ee aan arkayay fadhigiisa isaga oo sii jeeda waa adeer. qofka kalena waa islaantii aan saacado ka hor aniga iyo Zahra ku soo aragnay wadada oo naga wada yaabsatay. ruuxa laga hadlayayna waa aniga oo wali dooda xaaladeyda ayaa taagan. salaan iyo isxaal waraysi kadib adeer ayaa amba qaaday inuu si dabacsan ila hadlo. ereyo sabaalo iyo dhiirigelin ah ayuu iigu horumaray. wuxuuna adeer hadaladiisu ku badiyay kelmadda uu soo celceliyay oo ahayd nin yar oo fariid ah oo adag baa tahay. hadalkan wuxuu tilmaami karaa in adeer uu u yahay xogogaal waxa ay haysta iyo cidda fulisayba. sidoo kale waxaa laga fahmi karaa inuu yahay ruux garanaya heerka uu la eg yahay weerarka ay qabsaday iyo sida aan badi halisihiisa qorshaysan uga badbaaday. tan saddexaad ee ay noqon karto ayaa ah in adeer uu la yaab ku beeray habkan u raadiyay maslaxadeyda ee aan u sameeyay qorshaha jilliinka xanuunkayga ee aan ugu magacdaray curad. waxay doontaba ha ahaatee adeer wuxuu iskaaya baray islaantii hortiisa fadhisay. wuxuu iigu sheegay inay tahay sodohda Maxamuud ama hooyada dhashay xaaska Maxamuud. wuxuu ahaa kulankii ugu horeeyay ee iridda u furay xaaladeyda garanwaaga ahayd. waxaa hadashay islaantii oo iga soo faalootay bilowgii qisadan. waxa ay ayadu kala socotay haddana arrimaha qaar adeer ayaa ka afqabanayay in ay iga wax sheegto. aniguse xilligaas waxyaabaha laga qarinayo ama dib loo dhiganayo waxaa iiga muhiimsan inaan wax uun ka fahmo qisadaydan. sidaa darteed wax dood iyo hadal ah marna kuma dayin sheekada ii baxaysa. waxaa hadlaysa islaantii oo hadalkeeda badi ahmiyadiisu yahay sida xaaladda haysata Maxamuud ay ku soo bilaabantay. waxaan ka xasuusan karaa hadalladeedii badanaa habeenkaas. intan Maxamuud waa nin wadaad ah oo miskiin ah. wuxuu isaga jiray ganacsi xoolo dhoofin ah. isagoo iska ladan ayay qolo mooryaan ah wax ku darsadeen. mararka qaar ma aha nin caqli badan oo aad u fikira. nimankii ayaa lacag uu u hayay iyo xisaabaad dhex yaalay wax si ka noqdeen. aniga iima uusan wada waramin ee intaan waa in aan anigu qasab afkiisa kaga soo saaray. waxaa dhacday habeen ka mid ah habeenada in raggii oo gawaari ilaa 3 ah wata ay ugu yimaadeen guriga oo inta ay gabadha cabsatay aniga guriga igu soo garaacday. markaan soo kacay ee aan dhex imidna isaga iyo raggii kaleba waxay igu dhaheen maamo iska seexo annagu xisaab baan dejinaynaaye. kadib waan iska laabtay laakiin gabadha ayaa ii sii sheekaysay oo tiri hooyo maalmahan cabsi ayuu la bixi waayay Maxamuud. nimankan waxay ugu cagajuuleeyeen inay xirayaan ama ay dilayaan haddii uusan lacagta ku maqan bixin. waa arrin halis ah. nimankuna waa kuwa wax walba ay ka suuroobaan. aniga ayaa indhahooda arkay. intaas markaa ay islaantu hadalka marinayso ayaa wuxuu adeer su'aalay maxaa arrinkan tolka loogu soo bandhigi waayay. maxaad idinka uun isugu koobteen. islaantii oo ka lexleexanaysa dhalilaha meesha ku jira ayaa tiri taas annaka dumar baan ka ahayn ee isaga ayaa rag ah oo laga rabay inuu qaylo dhaan dirsado. bal haye ka soco oo sheekada noo sii wad ayuu noqday hadalkii xigay ee adeer uu yiri. halkaas ayayna ka sii waday sheekada.
hadda yadan ninku waa nin reer dhan curadkoodii ah, waa nin wadaad ah oo ganacsi nadiif ah isaga jiray, wuxuuna aad uga taxadiray inuu sumcadiisa ilaaliyo. dabcan wax uu kala dabaro. wuxuu qabsaday muddo uu ku bixinayo lacagtaas 2 jeer oo hore. markii ugu dambeysay wuxuu qabsaday 6 bilood oo ay hadda bil u sii raacday. lacag xoogaa ah ayuu isku soo ururiyey, ismana buuxin xisaabtii laga rabay. maanta aad xadhigiisa maqashaanna xaaladaas ayuu soo maray. hadalkii islaanta ee sidaas ahaa waxaa ka dhashay su'aalo badan. adeer ayaa mar kale weydiiyey oo lacagahan uu isku soo ururiyey xaguu ka keenay, madeemo kale buu soo qaatay. su'aashan adeer ayaa ogaal weydiin ahayd, waayo adeer wuu la socdaa halka uu lacagahan kale Maxamuud ka keenay. waxa kale uu og yahay in Maxamuud ay u harsan tahay xaalad ka daran xadhiga, haddana haddeer ma rabo in afkiisa laga maqlo arrimahaas. islaantii waxay jawaabta su'aasha la weydiiyey kaga gaabsatay mooyi halka uu ka keenay, kol ay noqotaba boosasgadayaaba. halkaas ay sida dadban u tiri waa meesha laga rabay inay si daacad ah uga waranto ogaalkeeda, laakiin waa qof xidid ah oo ka dhowrsanaysa arrimaha qaar ee qoyskan gabadha ka qaba ayada. anigu inta ay soo sheegtay waa wax igu wada cusub ogaalkooda, laakiin islaantu inta ii muhiimsaneyd ayay mar walba ka leexanaysaa. intaan iscelin waayey ayaan idhi, eedo maxaa iska quseeya qisadayda iyo tan Maxamuud? inta ay labadoodii is'eegeen ayuu adeer igu yidhi, sug ha degdegine, waxba iskama quseeyaane. waan qaadan waayey warkaas oo waxaan kulaleeyay hadalkaygii ilaa ay markii dambe nagu soo baxday Zahra. wax yar kadibna ay nagu soo laabteen reerkii ku maqnaa dhanka uu Maxamuud ku xidhnaa. halkaas ayayna ii joogtay sheekadu. aniga iyo Zahra oo aad ula yaaban waxa aan la qaylinayo iyo waxa aan dadkaas waaweyn ee ehelka aan ugu buuqayo ayaa gaar ila baxday oo iga waraysatay waxa dhacay. markaan xogta siiyey waxa labada qiso iska quseeya, haddana waxa isu turjumay sheekooyin ay si balfis ah ku maqashay iyo waxa islaantu tiri ma waxaysan indho iyo dhaga taagin baa Zahra. alla marka wax lagu sheego ayaad ileen wax garataa. hadalkaas ayay Zahra dhowr mar tiri ayadoon wax kalmad dheeri ah ku darin. intaan xaggeeda u soo fariistay baan anna ka daba leeyahay, haye Saaro abayo maxaad garatay? waxay mar qura igu tiri bal isug, oo waxay u baxday bannaanka si ay u soo hubsato kadibna iila wadaagto. inta ay ga maqan tahay Zahra waxa anna maskaxdeeda ku sii wareegaya bal inaan caqliga la kaashado halka ay labada qiso iska soo geli karaan. haddana waxaan aad uga sii shakiyey islaanta oo aan isiri munaafaqad daran ayay maleegaysaa ama sheekadan waa waxa iyadu soo dhistay. aad baan u dhararay, ayaduna waxay ku raagtay hubsiimo. had iyo jeer markaan kaliyeysto waxaan isdhahaa qisadaadan xaggee ku dhammaan doontaa. way ii sahlanaan lahayd fahamkeeda haddii aan dib u raaci lahaa habeenkii ugu horreeyey ee ay soo bilaabatay, laakiin taas marna kuma fikirin, mana lahayn waayo aragnimadeeda. hadda waxaa ii muhiim ah maxay Zahra soo wadaa. la soco qaybta 11.